اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد dhacdo aad iyo aad u xanuun badan qof kasta oo muslima اللهم صل على محمد يا رب صل عليه أعوذ وسلم بالله من الشيطان وجه الرجيم بسم الله الرحمن دنيانا الرحيم لكن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها المسلمون وأيها الإخوة والأخوات maanta kelimadaydu waxay ku saabsanaan doontaa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan qof kasta oo muslima qalbigiisu iimaan uu ku jirana goorta dhacdadaas la xusuusiyo ama uu xasuusto ama uu aqriyo uu aad iyo aad uga xanuunsanayo wallahi waa dhacdo aad u xanuun badan dhacdadaas ayada ee xanuunka badan oo aanu doonayno inaan iimaankayaga aan ku siyaadinno goor iyo waqti aan u baahannahay inuu iimaankayagu siyaado waqti aan u baahannahay qalbigayaga inaannu dib u noolayno waqti aannu u baahannahay quluubtayada inaannu tirtirno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan dib u xusuusinno ilaahayna aan u celino subxaanahu wa tacaala dhacdadan ayada ah wax badan bay ka qaadan doontaa nolosheenna iyo xayaatadeenna inta ka hadhay biidnillaahi subxaanahu wa tacaala wadakir fa ina adikraa tanfacu almu'miniin waxaa laga yaabaa inaad i weydiiso dhacdadaasi xanuunka badan waan u baahannahay inaan maqallo ee haddanana iimaanka noo siyaadinaya iimaanka iyaga kordhinaysa nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markii uu istaagay xajkii ugu dambeeyey ee uu xajiyey ee la dhihi jiray xajatulwadaac xajkaasi gadaashiisa isla markiiba waxaa soo degay qowluhu subxaanahu wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaas ayada ah oo ilaahay uu ku tilmaamayo subxaanahu wa tacaala maanta ayaan idiin dhammaystiray diinkii idiin dhammaystiray maanta ayaan idiin dhammaystiray aniga nicmadiinnii idiin dhammaystiray oo nicmatu lislaam waaliimaan aayaddaa markii ay soo degtay waxaa ooyey abu bakr radia allahu tacaala canhu wa ardaah abu bakar ayaa ooyey markii la yidhi maxaad la ooyeysaa wuxuu yidhi aayaddani waxay tilmaamaysaa geerida nabiga calayhi asalaatu wassalaam kadibna nebi moxamed wuu soo noqday 9 maalmood kadib sida ay mufasiriintu qayb ka mida tilmaamayaan waxaa soo degtay qowluhu subxaanahu wa tacaala waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah huma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun dadow waxaad ka baqdaan maalin dhexdiisa la idiin soo celin doono alle xaggiisa subxaanahu wa tacaala kadibna naf walba lagu abaalmarin doono wixii adduunyada ay ku kasbatay ayadoosan ilaahay usan dulmiyaynin ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo wama allahu bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo ilaahay addoommadiisa waxba kama nusqaamiyo xadgudubna kuma sameeyo rabbi subxaanahu wa tacaala dadku ayaga ayaa naftooda dulmiya walaakina annaasa anfusahum yadlimuun kadibna nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ku bilowday xanuun ayaa ku bilowday mar alle markuu xanuunku ku bilowday wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan soo siyaarto qubuuraha uxud saxaabadii nabiga maalintii uxud shahiiday ee xamse ibni cabdilmutalib uu ka mid ahaa ayaan doonayaa inaan qubuurtooda soo siyaarto
nabi maxamed waa tegay sala allahu calayhi waaalih wasalam qubuurihii ayuu dul istaagay wuxuuna ku yidhi assalaamu calaykum ya shuhadaa uxud antum asaabiquun wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun salaan dushiinna ha ahaato dadkii qubuurtii dadkii maalintii uxud shahiidayow shuhadada ahaayow nabadgeliyo iyo naxariis dushiinna ha ahaato waad naga hormarteene annaguna in shaa allahu oo litabarug ah gadaashiinna ayaanu ku jiraa raadkiinna ayaanu soo haynaa nabigu maxamed sala allahu calayhi wasalam marka uu ka soo noqday ziyaarada gaaban ee qubuurta uxud suu sagootinayey haddana waxaa ooyey abubakar haddanana waxaa ooyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayaa ooyey kadibna nabiga waxaa lagu yidhi maa yubkiika yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo maxaa kaa oohinaya waa mowqif aad u xanuun badan weeye saxaabadii nabiga la socotay sala allahu calayhi wasalam iyo nin kasta oo maanta loo sheego oo xabiibka jecel calayhi asalaatu wassalaam nebi moxamed jecel sala allahu calayhi waaalih wasalam qalbigiisa iimaan baa u siyaadaya qalbigiisa khushuuc ayaa gelaya rasuulka ilaahay oo maxaa kaa oohinaya khayru khalqillaahi baa ooyaya calayhi asalaatu wassalaam ilaahay makhluuqaadkuu abuuray midkii u khayr badnaabaa maalintaa ooyaya sala allahu calayhi waaalih wasalam ma garanaysaa nabigu jawaabtuu bixiyey maxaad u malaynaysaa nabiga maxaa ka oohiyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaan la ooyayaa walaalahay baan u xiisay walaalahay baan u xiisay saxaabadu way yaabeen miyaan annagu walaalaha ahayn rasuulka ilaahayow wa ayo dadkaad u xiistay dadkaad u xiistay iyadu ooyeysa wa ayo markaasuu yidhi laa 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 antum asxaabi idinku waxaa tihiin kuwii loo doortay inaad saxbo ila noqotaan ood ila saaxiibtaan ood wax ila cuntaan ood wax ila cabtaan ood ila safartaan ood dagaal ila gashaan nabad ila qaadataan antum asxaabi laakiin walaalahayga aan la ooyeyna weli arkin walaalahayga aan la ooyayo aan u xiisay waa qawmun ya'tuuna min bacdih waa qolo aniga gadaashayda imaan doonta qolo aniga gadaashayda imaan doonta yu'minuuna bi aniga i rumeeye walam yarawni aani arkin allah allah ya waa qolo aniga i rumaysay oo qowmkayga ka mid ahoon weli aanan arkin ayagu aan weli e arkin anna aana weli arkin laa antum asxaabii ama ikhwaanii faqawmun ya'tuuna min bacdii yu'minuuna bii walam yarawni yaa rab yaa rab ilaahay ou nabigaaga nala xidhiidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ou nagu dar kuwa nabiga uu leeyahay waa kuwa aniga i rumeeyey oon weli aanan i arkin yaa rab fahanii'an lakum fahanii'an lakum ثم هنيئا لكم أيها المؤمنون مؤمنين تنبي محمد رمي صلى الله عليه وسلم خدرنا حبي يتشعل القلب قوض إلهي كبير أيقون ولي قوض أركب أحبائي في الله إخوة الأعزاء ما تشعل لهي ما تشعشهي إن أتقدر ما تكوى النبي عليه الصلاة والسلام وشيقيه نبي محمد ويري ولا الله نبي محمد وليه ولا الله كوه تلمان توضنا أي تاي وي الرميين ولينا إما أركب ولا المكفر أحسن تهي ما تشعشى إنات كوه قدر مت إلهي وحان كبري أنيجي مسلمين تبعيرو كوه نقدر نبي محمد ولا الكلام نقدر صلى الله عليه وآله وسلم ولا ليال نبي محمد وصلى الله صلى الله عليه وسلم انتو سنجيريوني صدح مال موت كهر سوى حنون أدق هايو أيو نبي وحوكو صلابتي قريهيس عليه الصلاة والسلام أسوى جوا قريقا قبض ليلة ميمونة
ayuu xanuun adag qabtay. kadibna nabigu wuxuu yidhi bal iisoo kulmiya haweenkii, iisoo aruuriya haweenkii aan qabay oo dhan. kadib baa nabiga haweenkii baa loo keenay sal allau alay wasalam. mawqifkaa u fiirsa xanuun ka badan. bal maalintaasi soomaali yaab badan oo xanuun badan soo ma ah walaalayaal. nabiga sala allahu alayhi wasalam haweenkii baa loo keenay. kadib bay ka idin dalbeen oo kulli waa ay soo galeen. kadibna wuxuu ka dalbay haweenkii oo dhan inta naftiisa inta waktigiisa ka hadhay in guriga caaisha lagu xanaaneeyo oo guriga caaisha lagu baxnaaniyo oo guriga caasho la geeyo. haweenkii buu yidhi ma ii ogolaanaysaan? cadaaladda fiiriya, cadaaladda nabiga fiiriya sala allahu alayhi wasalam. xuquuqda nabiga siduu dumarka u ilaalinaya fiiriya sala allahu alayhi wasalam. jacaylka uu gabadha caaisha jecel yahay u fiiriya nabiga sala allahu alayhi wasalam. mawqifka xanuunka badan u fiiriya. haweenka nabiga waxaa laga dalbaday nabiga oo sii socda oo adduunyada ka sii socda inuu ka dalbanhayo in guriga caaisha lagu baxnaaniyo radia allahu tacaala canha wa ardaaha. waxay dhaheen rasuulka ilaahayow waanu ku ogolaan. kadibna nabigu inuu istaagu damcay sala allahu alayhi wasalam. kadibna waa awoodi waa inuu istaago. waxaa yimid cali bn abi aalib radia allahu tacaala canh iyo fadl ibnu cabbaas. markaasay nabiga xumbaareen sala allahu alayhi wasalam. waxayna ka bixiyeen gurigii iyo qolkii maymuuna, waxayna la aadeen qolkii iyo gurigii caaisha radia allahu tacaala canha. saxaabadii nabiga ayaa arkay calayhi asalaatu wassalaam awal mara xaaladda noocaasa nabi maxamed asagoo ku sugan sala allahu alayh wasalam. saxaabadii waxay bilaabeen inay isweydiinayaan maxaa dhacay, nabi maxamed maxaa ku soo kordhay, nabi maxamed maxaa ku dhacay sala allahu alayhi wa aalihi wasalam. kadibna masaajidka ayay ku kulmeen ayagoo isku celiliya masaajidka nabiga sala allahu alayhi wa aalihi wasalam. walaalayaal dhiid aad u fara badan oo aan la qiyaasi karin. caaisha ayaa tilmaamaysa, waxay tidhi weligay xayaatadayda iyo noloshayda intaan noolaa qof bini aadamah oo dhididka intaas la eg uu ka qubanayo ma arkin bay leedahay nabiga sala allahu alayh wasalam ka hor. kadibna gacanta nabiga ayaan qaaday bay tiri calayhi asalaatu wassalaam. markaasa waxaan bilaabay nabiga gacantiisa inaan wejigiisa ku masaxayo. maxaa dhacay? lianna gacantayda anu inaan nabiga ku masaxo waxaa igala khayr badan gacanta nabiga. maxaa yeele gacanta nabiga ayaa khayr badan bay leedahay oo ka khayr badan gacantayda sala allahu alayhi wa aalihi wasalam. nabigu muxuu ku dhawaaqay? laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat. laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat. alla xaq lagu caabudayo koonkanna ooma sugnaanin. ayuha almuslimuun, geeridu xanuun bay leedahay. hadduu nabi maxamed leeyahay geeridu xanuun bay leedahay, annaga maxaad u malaynaysaa? laa ilaaha ila allah khayru khalqi illaah ayaa intuu dhididku uu ka da-ay haddanana dhahaya ina lilmowti lasakaraat. subxaana allah, subxaana allah, astaqfir allah alcadiim. caaisha waxay leedahay waxaan idhi yaa rasuula allah, dadku waa ay kuu baqayaan, masaajidka ku kulmay way kuu baqayaan. markaasuu yidhi ii geeya, bal hala ii geeya. kadibna inuu istaago ayuu damcay, waa awoodi waaye. 7 baaldi oo biyo ah ayaa nabiga ku shubnay sala allahu alayhi wasalam. kadibna mimbarka ayuu fuulay. kelimaadka u dambeeyey nabiga dhegaysa dadow, ma anigaad ii baqaysaan? nacam rasuulka ilaahayow. dadow, mawcidkeennu adduunyada ma aha ballankeennu. ballankeennu waa xawdka nabiga sala allahu alayhi wasalam. ilaahay nagama qadiyo. ilaahay kuwuu gacantiisa ku waraabinaya ha nagu daro sala allahu alayhi wasalam. meeshan aan taagnahay waxaan arkaa buu yidhi dadow,
هذا أن تاجنهي كأني أنظر إلى مقامي ماشان جنة كلها كأني أنيقو أركيا والله إذن كمان بقي فقري يا إن الدنيا ويدان وحبا ويدان وحاس إذن كبقي إن الدنيا متغانا التسابقدان وأتكتر تنتان كدبنا سيدي قليه إذن كوريي آدوها لك سنتان بعدين كبقيا دلو حدين دردنا يا الصلاة وما ملكت أيمانكم والصلاة إيا عدة المسؤول ككتهين اتقوا الله في النساء دلو رغو دمرك إلالية اتقوا الله أوصيكم بالنساء دمرك أيا عدين دردار مياه مركز النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عندما أنت إذن نحتاجا وأدون لبل الدورسية اللبو وحال الدورسية أو اللي يلمد أندوره الدنيا ده إيا دلالال كده إيا وحي ألا أكتي سيالة وحونا دورته وحي ألا أكتي سيالة هنا أي أبو بكر مرلباد أوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها المسلمون إلهي بانذو كداري أيها المسلمون موقفك عجيب كبضا إياب كبضا حنون كبضا ولول كبضا أن حصوصا انت أنو كذا كل ما إنه حلقة أنا هين وإيمان كينا أنكر أبو قاضي إنه وحاني ذي كذا يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.